مصطفى مرسل كلينكا وهينتا مرسل دينتا والمودينكا بعض الصحافة اللي هدي أنت برافو ما أنت واحد اللي هو كل شيء خوات ولا غير ما ملك قبله مرسل بعصبي وإننا كلمه سوي النور ورمه وهي وحقبت قبلك سيدا إنه ولا شغلتي كده حين لهي مدحنا قبيلة ما ملك قبلك أي وجدت وين ما تسكون من الإيطال واحد كسر ويننا قدوميها قبلك مصطفى سيدا الهرم كسر ويني مالنتي حلوة نسيتا واحد نوصل كسر ويننا ونلا نهاي سودو كامو فرما كسر ويننا وأنا كل كيني كوباد إنه يهرنو هذي إنه نهاي ضل نهاي وقاشي مدحنا قبيلة قبلك ما ملك قبلكم waxaanu boqolkiiba boqol aanu ku sheegnaa inaanu ku taageersanahay kulana shaqeynano wax alla wixii caqabada ee gobolka ku yimaada xagga nabadgelyada xagga waxqabsiga xagga iskaashiga inaanu diyaar kula nahay gudoomiye diyaar baan kula nahay odayadan waa odayadii gobolka mar walba ka shaqeeyay nabadgelyada sidoo xogayo uu sheegay mar walba waxaanu diyaar u nahay inaanu wada shaqeyno gobolka waayo haddii aan وقاش هي مدحنا قبيلة أنا اللي شغال معهم الكقول أما هالنقطة القبل كقدومية أما حق النبتقلية ده هالنقطة ده واحد صغير يمشي مركزان نهاي مدحنا قبيلة دي وحنو آدي كوزو دوينا وأنا نتاجر سنهاي إن أنا كارس شغالينه وحلو ويجي قبل وحقبله هي حق النبتقلية ده يبدأ أول واحد كلو أنا كفاية إذا فرصة inkastuu inoola hadli doono barasaabku waxaan soo dhaweynayaa oon aad iyo aad ugu mahadnaqanaa hambalina u dirayaa go-aankii diiranaa ee aynu shacabku ku diirsaday ee golaha guurtida somalilan ay ka gaadheen khilaafkii yaraa ee ka dhexeeya kulmiye kaana waxaan leeyahay waxa shacabka reer somalilandna waan ugu hambaliyeynayaa golaha guurtigana waan ugu hambaliyeynayaa waxaana leenahay waa go-aan geesinimo waxaan kaloo nusii hambaliyeynayaa labadii dhinac ee khilaafka ka dhexeeyey ee iyaguna qaatay go-aankii golaha guurtida soo saartay taas iyaduna wax weyn oo loogu mahadnaqaa waa wixii ay somalilan ay u soo lahayd isarka in mararka ay khilaafka saasoo kala yimaadaan guurtidu ay dhex gasho ama cuqaashu ay dhex gasho dabeedna la isla qaato taana aad iyo aad iyo aad baan golaha guurtida iyo shacabka reer somalilandba iyo dhinacyadii kulmiye madaxweynaha iyo muusaba waxaana ka timid gobolkii la wada lahaa gobolkii aynu dhammaanteedba ka soo wada jeednay waa ceergaabo iyo barsaba ka socda marka marka horeba wuxuu ahaa nin isagu dee iska somaliland oo dhanba ah gudoomiye soo dhawow diyaar baan ku nahay inaan kula shaqeyno wasalaamu calaykum waraxmatullahi aragnay laakiin si jamaca maanta kortoo iskumaynayn waaqa degmada sababtaan isku arki weyne waxaa anigu markii aan imin magaalada gobolka xilkii intaan la wareegin waxaan la kulmay labada qodob waxaanu kala hadalay kow in degmooyinku ka iyo deegaamada kale ama tuulaha noqoto ee uu ka kooban yahay gobolka oo dhan inay degmada Gabiley oo dhaqaalahaan iyadu ugu maaragtay jeefro dib ugu celiso wax sanadkiiba mashaariic dib ugu celiso iyo in cuqaasho loo helo guri ay isugu yimaadaan oo ay ku maaragtay ku kala xaajiyaan qaata oo dawladda hoose dabeedna biyihii sokortii shaahi qofkii dadka ka shaqeynayay weli dabeedna halkaa marka cuqaashu haddii ay deegaamo kale ka imanayaan haddii magaalada joogaata ku kulmaan labadii qodob bay iga aqbaleen maalintii xil wareejinta xilka la wareegay waa anigii markaa fagaaraha ka sheegay gurigiina waan u diray cuqaasha qaar ka mid ah sida jiif caqiilka oo kale gobolka xaweeya degmadana waan u diray ilaa iminka gurigii ma hayo waxaana warkuu yahay oo leeyahay guri dhow ayaa loo baahan yahay cuqaasha iskugu iman karto marka taasaa kaliftay inaanan kulmin waayo waxaan doonayay maalinta gurigaa aynu furayno inaynu isugu wada nimaadno dhammaanteed oo dabeedna gurigaas uu inoo noqdo saldhig aynu isugu nimaadno aynu ku kala warqaadno taa laajriga waxaan doonaya inaan lahaata inaan horey uga arkin idinka micnuu maaha inaanan danaynayno cuqaasha sababtoo ah cuqaashu waa gacmihii dowladda haddii aan cuqaashu jirin nabadgelyada dalkani ma jirayso grace iyo dowladina waxba ka qaban kari maayaan mujtamaca haddii aanay dadkoodii waayeelkoodii aanay gacanta ku hayn
markaan arkay gurigiinu fogaanayo ayay qasab noqotay markaa inaan saaragno dhammaantiin iminka waxaan leeyahay bal noo soo helo meel aynu isugu nimaadno gurigan isugu nimaadno taas halkaa waxaan maqlaynayaa maanta kulankeena markaa horta xaggiinaan hadal kusoo wareejin doonaa laakiin waxyaabaa doonaya in kalaan waxaa ka mid ah horta qodobka ugu weyn waa nabadgelyada horta nasiib intanaan joogo wax badan ma dhicin ninkii iga horreeyeyna wuxuu lahaa nasiib baan ku lahaa intaan joogo waxba may dhicin gabaleyna warar badan baa laga soo sheegi jira anuu wariyahanayo in badan baan ka warrami jiray arrimaha nabadgelyada horta taa waa idinka mahad celinayaa wanaagga guud ahaan reer gabaley gaar ahaan cuqaashooda waxaan jecelahayna wada shaqaynta inay kasoo dhawaato intii hore inay kasoo dhawaato anigoo jecel weliba inaynu imika u jihaysano xagga horumarka nabadgelyadana adkeyn insha allah meelaha yar wax ka jiraan dhammayn doonaa dhammaan guud ahaan cuqaasha iyo salaadiinta iyo maamulka gobolka iyo xeer qaranba waanu ka wada shaqayn doonaa wax dhiman gabagabeynteeda laakiin waxaan doonaynaa qarnigan iyo xilligan aynu maanta joogno wixii ka dambeeya inaynu u guurno dhinacii horumar ood idinku noqotaan hormuudkii horumarka ka qayb qaadanayay oo aynu nabadgelyadu keliya idinku ekaana aad nagala shaqaysaan hadday tilmaan noqoto hadday soo gudbin cabasho noqoto waayo priority-ga ama mudnaanta baahiyaha dalka jira idinka cidda kaga xogaansan male marka inaad idinku soo gudbisaan baahiyaha iyo priority-ga iyo mudnaanta baahiyaha in wax laga qabto loo baahan yahay annaguna waxaan isku dayi doonaa annagoo kaashanayna dowladda hoose dowladda dhexe iyo hay-adaha ajnabigaaba inaanu ka jawaabno dabeedna ama aanu qorshe u samayno annaga iyo dabadayaba waxaa baahiyaha lagu dhammaystiro aan u samayno waxaan kaloo doonayaa in haddii waxaa la yidhi qofkaan u mahad celin dadka ilaahay uma mahad celiyo waxaan doonayaa in aynu iyana ku taageerno dadka waxqabadka wada ama xukuumad ama qurba joog ama cuqaal ama waayeel inaynu ugu mahad celino hadba cidda waxqabad inoo samaysaa oo aynu muujino si aynu ugu tirtirsiino in ay tallaabo ku xigto oo kale laynoo qabto maalmahan warar baa ka imanaya qolyaha sirdoonka iyo ururadan daba socda argagixisadoo kale wararkaas waxaa weeye in laynagu soo dhumanayo in laynagu soo socdo oo ragga qaar ay soo firxad iyagoo ayna soo gaadhayaan xubno iyo ashkaas ah waxaan idinku boorinayaa inaad ilaalisaan nabadgelyada si aad awal u ilaalin jirteen inaad dadku ku wacyigelisaan inaanay gurina cid ka kirayn aan la garanayn inay soo sheegaan qofka aanay garanayn in la ogaado aada la socotaan dhammaanteen bilays noqono waayo haddii inaan bilays noqon dhammaantayo waxay xaaladdu noqon doontaa inay xumaato oo qofna uu keligii meel istaagi waayo nimankaasi waad ogtihiin ma aha oo keliya inay dowlad burburinayaan xitaa qof kasta wax garanaya marka ugu horeysa dadku waxay ka dilaan waa idinkoo kale wey dadku waxay ka xumeeyaan ama wax ka yeelaan ay dhibaateeyaan waa idinkoo kale cuqaashiya iyo salaadiinta iyo waxgaradka iyo inta aqoonta lema koola lahayn waxaan rajeynayaa inaynaan fursad siin kuwa aynu ka shaqayno oon ciidamada daba istaagno oo rurarka usoo gudbino halkan waxaa laga mahad celiyey go-aanka golaha guurtiisa maalin weli gaadheen oo ahaa inay sidii lagu yaqaanay somalilan waxay dadka dheer tahay waa odayaal waa waayeel waa waxgarad waa wax aqoon wey guurtidiina oo ah maata hay-adda dhinaca nabadgelyada iyo walaaleynta inoo qaabilsan oo ah taynu ku taaganahay maanta oo haddii aanay guurtida iyo odayaashaasi jirin maanta somalilan may jirteen 93 anigoo wariyaa waan xasuustaa inaan isku dayn inaan raacno niman ka yimi awdal oo cuqaal iyo madax dhaqmeed ah salaadiina oo doonaya inay ka tallaabaan xadka u dhexeeya berbere iyo hargeysa 92 oo colaad ka jirto markaan waxaa laga tagnaan aragnay nimanka soo taagtaagan ee dhaaca sacas ee saqraarsan ee qoryaha sita ee meydku agyaalo annagu wariyaashii oo dhan waanu ku dhiiran weyn inaanu dhaafno laakiin odayaasha iyo odayaal ka raacay hargeysa oo ka cabdiwaraabe suldaan cabdi sheekh ibraahim rag noocaas oo kale allah u naxariista inta dhimatay inta noolna ilaahay cimriga ha u barakeeyo ay ku jiraan baa ka raacay halka annaguna waan iska hadhnay wariyaasheedii niman dhallinyaraa baan waxaynu naftaan ku jeclaan nimankii naftooda u huray inay jeedhaan nimanka oo sheekh ku qabtaan nabashirka ugu horey nabadeynta waxay ahaayeen nimankii waayeelkii dalkan ahaayeen maalinta haddaan iyagu jiri lahayna siyaasiyiintu may heshiiyeen marnaba siyaasigu ma heshiinayo sababtaas gartana in loo noqdo oo hadba aanay maaragtay loo hogaansamo waxa ka soo baxa waayeelkeena
taana waa mid kale oo mid ku baraarujinayo dhammaantayo inaynu gacmaha isqabsanno anigu kole waad arkaysaa waxaa la yidhaha nin dhalinyaro gobolka loo soo magacaabo inta badan waxaa la yidhahdaa wuxuu hadradiisa u badnaa dhalinyarada la shaqeynaya micnuhu maaha dhalinyarada la shaqeynaya waa yeedka uu ka tegayay cuqaasha waa kuwa wasaaradda aanu direct wada shaqeynta tooska leen gobolka wuxuu wada shaqeyn rasmi ah leeyahay waa cuqaasha laakiin waxaan u jeedaa maadaama annagoo isku mid ah waxaanu la shaqeyn doonaa dhalinyarada iyo hay-adaha kale horumarka sameynaya markaana saa leeyahay waxaan wataa magaciini iyo magaca gobolka dabeedna waxaan la shaqeyn doonaa dhalinyarada iyo dadka kale ee horumarka iyaguna aanu ka wada shaqeynayno haddii aynan maamul ahaan la shaqeyn dhalinyaradii iyo idinkana rabshad iyo maaragtay shaqo la-aantooda iyo waxtar la-aantoodaba idinkana dhib unbay ku keenaysaa sida aawadeed iyagana waa inaanu la shaqeynaa oo aynu horumarinaa oo aynu ururinaa oo aynu ururo u samaynaa oo aynu shaqo abuur u samaynaa taana waa halkaa laakiin waxaan diyaar u ahay mar walba oo xafiiska igu furan yahay oo taleefanka igu furan yahay oon idinku imanaya goobihiina marka aad u baahataan iyo xilliga aad u baahataan waxaan diyaar u ahay inaan soo dhiraandhiriyo wixii ku xidhan xukuumadda dhexe waayo brasabku waa isku xidhaha xukuumadda dhexe iyo gobolka haddii hay-adihii dowladda tahay haddii ay dadkii waayeelka gobolka tahay iyo haddii shacabka gobolka tahay waa isku xidhiin anigu waxaan ahay un bridgeka idin dhexeeya taana waxaan rajeynaya insha allah inaan garanayo waan ka shaqeyn doonaa hadii alayidhi haddana hadalka xaggiinan soo wareejin doonaa kullidan magacayga mustafa eega tiim baa nagu wada jira moogta waa shaqada yar meeshii wax ka qiiqaan waa shaqada yar haddaan kaaga warramo gobolka horta nasiib wanaag waa gobol beeraleya oo degan dhibtiisu ma badna waxa ugu badani waa mada beereed moogta dembiyada waaweyne ka dhacaa bariga ama dhulka kale aalaa kama dhacaa inta ugu badan waa barood ama la isku haysto ama mada beereed weeyaan taasi kolley waan kuugu bishaarinaya wax waaweyn kamana dhacaan allahana inaga hayo ta kale waxaanu nahay kuwa habeen iyo maalinba u taagan ee la shaqeeya maxkamadaha ee garsoorka ka mida ee intaa dadku u istiidaaya xaggaa wax ku dhammeeya 80% ee la shaqeeya barasaabada ee bulshada ku dhex jira ee wixii xooga og iyaanu nahay waanu kaa ballan qaadaynaa taa nabadgelyada had ka dhawaajisay inuu firxad xaggan usoo firxaday waayo waxaanu dadkaanu nabadoonka u nahay meel walba daadsan waxaanu gaadhsiinaynaa oonu iclaaminaynaa wax alla wixii aad garan weydaan inaad na soo gaadhsiisaan oo dowladda soo gaadhsiisaan waayo dee nabadgelyada nimankaasi midna uma roona shicib uma roona dowlad uma roona diin uma roona wax alle waxay u roon yihiin malaha taana waxaan kaga baxayaa intaa waanu ballan qaadaynaa ta kale maanta fursad baanu helay waayo waanu ka faa'iidaysanaynaa fursadda waxaanu isku daynay intii ishaysigu jiray ee xusbigaa kulmiye dhexdiisa ku jiray dadku waxgaradka oo dhani aada buu u warwaray waayo haddaad sallaan fuusho oo meeshii u dambaysay markaad joogto aad soo dhacdo yaa dee inaad waa jajabi aada baa xisbigaa ishaysigiisa labada garab noqday ayaa waxgaradku uga xumaa moogta han hadallaa la yidhi meelan ka hadalla ma joognaan nine meel wuxuu inoo bannaanaan aan ka hadalla moogta maanta waayo fursaddii ugu wanaagsanayd weeyaan waanu ka hadlaynaa maanta waxaanu hambaliyaynaynaa waanu si dhaba u hambaliyaynaynaa golaha guurtida ee ka shaqaysay khilaafkaa kulmiye dhexdiisa ee ku guulaysatay ee somalilayna dheerayd ummadaha kale ee dariska ah ama dalkii soomaaliya la odhan jiray uu dheerayd golaha guurtida inkastoo ay tiirarkii adkaa ka dhammaadeen haddana wuxuunbaa waxa la god libaax lafa lagama waayo haddana waa kuwa maantana ku guulaystayoo sidii saleebaan sheegay awalna waanu ku guulaysan jirn maantana waan rajaynaynaa annaguna waxaanu leenahay ilaahay idinka ajirsiiyo waayo qarankii baad u gurmateen somalilan baad u gurmateen danteennii bay u gurmadeen qarannimadeennii kuwa qaatayna waxaanu leenahay haddaan garta la qaadan waxba ma tarto garabada qaatay ee hanka siyaasadeed lahaana
waxaanu leenahay idinkuna waad mahadsantihiin waqtigiinana waad heli doontaan insha allah iyagana intaasaanu ku bogaadinaynaa waxa kaloon salaan u dirayaa hambalyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinayn waayo waxa la yidhi ibran saadiisa la arag Soomaaliya lama siiyo ninka waxa lagu qiimeeyaa lagu doortaa markan uu wax ballan qaado wixii uu ballan qaaday ma fuliyo waxa la yidhi ballan lahayn diin ma laha wixii uu ballan qaaday inta badan adduunyo markii soo bartay oo dadkii soo bartay ayaa tahay oo way ku dhib yaraan doontaa insha Allah intaasi waa soo dhaweynta barasaabka inta kale alxamdulillah horta ilaahay baa mahadle ilaaha isku keenay inteenan Soomaaliland waa fajiyay wanaaga ilaaha samahadle waxaan mahadnaqayaa golaha guurtida ayaan mahadnaqayaa shacbiga Soomaaliland oo dhan baa mahadnaqaya taladu halkay fadhiday ayay dhigeen halkii Soomaaliland hidaha u lahayd iyo dhaqanka ayay dhigeen inkastoo golihii guurtidu imika wax garadkiisii yar yahay haddana waxa la yidhi xaarin libaax nafa lagama waayo waxa weeyaan aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay halkaasi waa halkaan hidaha iyo dhaqanka u lahayn kolkay wax yimaadaane halkaa ka sii wadan leen waxa kaloon u mahadnaqayaa xusbiga kulmiye labada garab ee u kala ahaa ee markii golihii guurtidu arrinkii galay ee waxaasaanu garanay yidhaahdeen alxamdulillah yidhi ee labadiiba qaateen gobonnimo waanu mahadnaqaynaa ayagan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Aadan waanu mahadnaqayaa waxaana leeyahay madaxweyne waxaa soo qabatay la odhan maayo taariikhda qorta taariikhdu nin walba sheegta wuxuu qabtay waxaad qabatay af laga sheegay ma taariikhda qoraysa inta